السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد عبد الله كسر هذا فيديو قابن وأن دوني أنا كجاه الله وحلو يقانو DCA Dollar Cost Averaging وبريها دنبر دلني يرادا كجنا عستا كريبتو كارنسي أما كشغي ستا أيرونتي يادو سميان DCA هو استراتيجية فائدة بدن أو طبعا سوقيا أونلاين كان لوجا شغيستو هذا أهان لهيد كريبتو كارنسي هذا أهان لهيد ستوكا iyo wixii la mida waa dabcan istiraatiijiyad looga shaqeysto haddaynu si sahlan u sharxnana waxa weeye in aad coinankii ama midhihii aad haysatay aad biiriso marka dabcan DCA ga laba noocba waa loo sameeyaa marka aad faa'iidada ku jirto oo coinkii aad iibsatay uu sare kula socdo DCA laftirkeeda waa la sameeyaa oo coinankii baad badsanaysaa si faa'iido kugu sii badato iyo markaad khasaare adigu ku jirto oo coinkii aad iibsatay uu kula daato iyadana waa la sameeyaa marka hadda waxaanu ka hadlaynaa markaad khasaaraha ku jirto saa loo sameeyo dabcan DCA gu dabcan dadku kala istiraatiijiyad bay u samaystaan laakiin maalmaha dan waxaan arkay dhalinyaradu inay si khaldan runtii ay u sameynayaan iyagoo dabcan ka soo maqlay niman macallimiin isku sheegaya oo iyaga laftirkooda aan fikradba ka haysan iyaga laftirkoodu soo maqlay kadibna dhalinyaradii suuqu markuu yara daato odhanaya DCA hala sameeyo kadibna si runtii qaab daran oo aan faa'iido lahayn loo sameynayo DCA ga oo aan sidii saxda ahayn runtii marka sida saxda ah loo sameeyo DCA ga faa'iido badan ayuu leeyahay khasaare badanna wuu ka hortagaa haddaba intaanan u gelin sharaxaadda DCA ga waqtiyadan dambe dhalinyaro aad u tiro badan ayaa waxay ku soo biirayaan ka shaqaysiga cryptocurrency-ga runtii waa tallaabo wanaagsan waa arrin wanaagsan cryptadu waa meel laga shaqaysan karo waliba si xalaal looga shaqaysan karo iyadoo laga shaqaysanayo marka spotka la iska ilaalinayo future-ka iyo derivative-ka oo iyagu qaybo xaaraan ah iyo staking-ka iyo earning-ka waxa loo yaqaano iyadoo laga fogaanayo iyo waliba coinanka ku dhisan mashaariicda yani xaaraanta ana la iska jirayo bariyahan dambe waxa soo baxay runtii macallimiin fara badan oo iyagu markaa dadka wax kasta gelinaya macallimiintaas oo moodo runtii in aanay cryptadaba baaritaan ku samaynin ee ay iska soo maqleen oo dadkii coinan xaaraana ku oranaya maalgashada wax kasta oranaya maalgashada marka taana dhalinyarada waxa la iska ilaaliyaa oo si xalaal ah meesha uga shaqaysta cryptadu waa runtii meel laga shaqaysan karo irsaaqad xalaalan aad ka heli karto haddii ilaahay ku qoray haddaba dhalinyarada soo badanaysa waxaan kula talinayaa dabcan dhalinyarada badankoodu lacag badan ma hayaan lacag yar bay suuqa soo galaan suuqa markay soo galaan iyagu dabcan experience ma laha suuqan oo yani khibradu ma laha siyaabo khaldan bay u galaan sida ugu fiican ee suuqa looga faa'iideystay loo galo waxa weeye lacagta aad wadato suuqa hal mar lama wada geliyo tusaale ahaan haddaa suuqan $100 la soo gashay boqolkaaga dollar konton baa suuqa la geliyaa yani lacagta haysato baa laba loo qaybay dad kun haysatana 500 geli lacagta aad haysato hal mar ha ku wada tuurin meesha qayb waa inaad haysataa marka tusaale aynu ku bixina $100 maadaama dadkeenu iska jeeb yar yihiin boqolkaaga dollar kontonna ku gal kontonna dhigo kontonka aad dhiganayso markaa maxaad u dhiganaysaa waxaad u dhiganaysaa inaad ku samayso DCA haddiiba coinka aad gashay uu kula soo dhaco waa inaad DCA samaysaa haddaad marka ugu horeysa boqolkaagii dollar meesha aad iska geliso dabcan DCA ma samayn kartid waxay noqonaysaa inaad iska sugto tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa Ethereum inaad halkaa ka gashay nasiib xumo lagula soo daatay marka boqolkaagii dollar ba haddaad dhakadaas sare ka soo gashay ilaa inta waxay noqonaysaa inaad iska daawato iska sugto يعني marka xitaa la soo noqonayo aad iska daawato yani runtii waqti badan baa ka lumaya niyad jab badan ayaa soo gaaraya runtii arrin xanuunkeeda la weeyay qofkii Soomaali baa garanaya si aad marka taa uga badbaado waa inaad lacagtaadii kala qaybisaa tusaale ahaan $50 baad halkaa ka gashay $50 waa lagu la soo daatay $50 baa ku harsanaa oo marka aad haysatay su'aashu marka waxay tahay DCA ga ugu horeey goorma samaynaysaa dhalinyaro badani si khaldan ay DCA u sameeyaan oo suuqu markuu in yar la soo daataba DCA bay sameeyaan
in yaroo kale marka la soo daato DCA bay sameeyaan waxa laga yaabaa suuqo aan 10% soo daadan inay 5-6 jeer DCA sameeyaan kadibna lacagtu ay ka dhamaato dabcan saas yani faa'iido ma laha marka istiraatiijiyada ugu wanaagsan la sameeyaa waxay tahay ee la isku raacsan yahay DCA-gaaga ugu horeeya waxaa la sameeyaa 30% marka la soo daato iyo wixii ka badan dadka qaarkood 50% marka la daato ayay sameeyaan dabcan dadku kale istiraatiijiyada qaar baa 40% marka la daato sameeya laakiin waxa la isku waafaqsan yahay 30% marka suuqu kugu soo daato DCA-gaaga ugu horeeya samee 30% dambe marka la daatana ka ku xiga samee laakiin DCA ha samaynin marka suuqu yar kugu daato 10% kugu daato ama 20% kugu daato waxba DCA ha samaynin iska sug waayo suuqu meel fog ma tegin waxa laga yaabaa inuu kugu soo laabto haddaba tusaaleyn haddaan ku soo laabano haddiiba aad halkaas konton ka gashay dhakada sare lagula soo daatay dabcan halkan labadan line waxay isu jiraan yani 30% bay isu jiraan oo horaan u cabiray DCA-gaaga labaad waxaad ka samaynaysaa marka 30% la soo dhaco marka area-dan la marayo ayaa dabcan samaynaysaa DCA-gaaga ugu horeeya DCA-gaaga ugu horeeya marka samaynayso lacagtii ku harsanayd ee markii horeba aad ugu tala gashay inaad DCA-ga ku samayso miyaad wada gelinaysaa mise qaybaad gelinaysaa taa qudheedu waa su'aal muhiim ah lacagtii aad DCA-ga ugu tala gashay ee ku taalay ee $50 ahayd ma wada gelinaysid divide by 2 baad leedahay labaad u qaybinaysaa qayb ahaan ayaad gelinaysaa tusaale ahaan $50 $25 ayaad DCA-gaaga ugu horeeya ku samaynaysaa marka 30% la soo dhaco sababtuna waxay tahay suuqu si daadan karaa 30% kale uu si daadan karaa marka waxaa la doonayaa in markastaba aad DCA samayn karto sidaa darteed markastaba lacagta aad haysato waa inaad qaybiso weeyaan runtii waa arinta ugu faa'iidada badan saas weeyaan haddaba waa maxay faa'iidada DCA gu leeyahay waxaynu sheegnay halkaas raad ka soo gashay $50 baa ka soo gashay 30% baa lagu soo dhacay dabcan taamciidu waxay tahay $15 ayaad khasaartay oo minus aad ku jirtaa halkan aad markaa $25 ka gelisay dabcan markii 30% lagu soo dhacay ayaad halkaa 25 ka gelisay suuqii uu kugu soo laabtay haddaynu hadda intan cabirno suuqu hadda wuxuu sare u laabtay 40% marka 25kaagii dollar ee aad bartaa ka gelisay halka markuu tago $10 ayaad faa'iiday $10 faa'iido baad haysataa dabcan weli halkan minus baad kaga jirtaa oo meeshii markii ugu horeysay aad ka gashay lama soo dhaafin laakiin faa'iidaad ku jirtaa haddii markaa tusaale ahaan $100 baad halkaas ka gelin lahayd ilaa hadda khasaarad ku jiri lahayd oo dabcan suuqu marka meeshii aad ka gashay uu dhaafo bay faa'iido ku bilaabmaysaa marka dabcan faa'iidada DCA waxay tahay in aad goor horeba faa'iido gasho oo mar horeba aad faa'iido oo aanad suuqa dabcan iska daawon ama aanad iska fadhiin oo aanad ku caajisin meesha laakiin faa'iido ay ku socoto hadii suuqan dabcan saru laabto oo meeshaadi hor dhaafana faa'iido way ku sii badanaysaa oo dabcan $50 halkaas sare aad ka gashay ayaa isaguna faa'iido ku keenaya marka dabcan DCA gu waxa weeyaan in maaragtay waa risk management baan oran karaa ama inaad khasaarahaaga maamusho waa runtii hababka ugu wanaagsan ee maaragtay khasaaraha lagu maamulo waxa iga baraarujin ah DCA ga waxa lagu sameeyaa coinanka micnaha leh ee mashruuca leh DCA ga laguma sameeyo coinanka shit coinska ama meme coinska waa isku mid shit coin iyo meme coin waa isku mid weeyaan kuwa laguma sameeyo sababtu waxa weeye coinankaasi waa coinan la iska samaystay oo qashina suuqana ka bixi kara marka wax suuqa ka bixi kara oo aan isku halayn lahayn haddii aad lacag ku gurto dee dabcan khasaare ku tahay suuqa laga saaro ama ay sooba noqon weydo lacagna aad ku sii gurto dabcan khasaare weyn baa ku soo wajahaya marka DCA ga waxa lagu sameeyaa coinanka waaweyn ee mashaariicda leh maaragtay aan laga baqaynin maaragtay inay si sahlan ku burburaan ee rajada weyn laga qabo inay soo laabtaan ama rajada laga qabo
ayaa DCA ga lagu sameeyaa iska ilaaliya markaa shitcoinada beriyahan daba waxaad arkaysaa dad shitcoino qashin ah oo yaala dhagasiska yaala dadkii oranaya ku sameeya DCA ku sameeynaya hantidooda ku baabiinaya marka waxyaabaha iska ilaaliya insha Allah khayrta aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa muuqaalkan gaaban in aad wuxuun ka faa'iideen tan iyo muuqaalka kan inoogu xigi doono waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh